gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Cabdirashiid Riyaraac xogihii u dambeeyay maxay bulshada uga waran. بسم الله الرحمن الرحيم marka hore aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa warbaahintan maanta oo dhan taagnayd Sonsaf oo runtii aad iyo aad isaga xil saartay maanta doorashadii samaysayna madal mar walba lagala hadli karo dadka intaa kadib runtii doorashooyinkii ama doorashadii way officially way inoo soo xidhantay waxa waqtigii sharcigu ahaana waa la gaadhay 6 galabnimo ee galabta doorashadii waxay u soo xidhantay si official ah waxaa jira goobo kayugoodu ama dadku uu taagnaa sharciguna wuxuu dhigayaa 6 galabnimo meeshii ay joogaan muwaadiniin aan codaynini in askari xagga dambe laga dhigo dabeedna ay codkooda dhiibtaan waqtina kuma xidhna oo ilaa inta ay ku dhamaysanayaan weeye laakiin waxaan maala ka sheegaynaa alxamdulillahi rabbil caalamiin in doorashadii soo dhammaatay si officialna u soo xidhantay goobaha yaryar mooye ay soo wada xidhmeen si nabadgelyaana ku soo xidhmeen halkan waxaan runtii ugu mahadnaqaynaa dhamaystiran baan arkay dhegeysta Somaliland shay waanadayda dhugo dambalkan ku sidiyo dhawaaqa codkayga maqal bulsho dhawaaqa codkayga maqal aan xirka wanagu bato ameel baa loo ruxaa dhefun lama raadiyo dhadhama raac lama noqdee dhamoo calankeena iyo xornimo waa loo dhintaa daraara loo qadayo dhiigga loo daadiyaa halkan waxaan runtii uga mahadnaqaynaa dhammaanba Somaliland guul ayaan leenahay Somaliland baa guulaysatay shacabkeeda ayaa mudan oo aan u mahadnaqaynaa nabadgelyada ku codeeyay sida mugga iyo miisaan kale doorashada ugu soo baxay codkooda u dhiibtay insha Allah ay inoo soo bixi doonaan xildhibaano ay inoo soo xuleen oo wanaagsan intaa waxaan raacinayaa halkan waxaan dardaaran kama dambaysa uga dirayaa hawlwadeennada iyo tiimka commissionka meel walay joogaanba waxaan leeyahay maanta mas-uuliyaddu way inoo qaybsanayd innagiyo shacabkuna waa codaynayey innaguna waynu hawshaynu wadnay haddeerta Somaliland mas-uuliyaddii ay inaga sugaysay bay inagu soo wareegtay waxaan idinkula dardaarmayaa in dhaartii aynu maray iyo cadaaladdeenu ku ballan qaadnay iyo dhexdhexaadnimadii codka lagu tiriyo qof waliba wuxuu xaq u leeyahay loogu tiriyo la ilaaliyo wanaaggaa shacabku uu inoo muujiyey iyo sidaa wanaagsan ay u codeeyeen qof waloo codeeyeyba inuu codkiisa halkii uu la doonay uu xaqiisa ku helo ayaa runtii kula dardaarmaya waxaan kaloo u sheegayaa dhammaan guddoomiyeyaasha goobaha hawsha cusub ee hadda u bilaabmayso ee tirinta gelaya in mas-uuliyadda koobaad ay iyaga saaran tahay inay runtii muraaqibiinta xusbiyada ixtiraamaan inay tirinta iyo codadka ixtiraamaan in ay u ogolaadaan goobjoogayaasha la joogay ee la shaqaynayey inay tirinta kala qayb galaan dhammaan xaq bay u leeyihiin waa sharci goobjoogaha maxalliga iyo goobjoogaha caalamigiiba haddii ay labadaa goobjooga joogayaan haddii ay iyagu iska tegayaanna xor bay u yihiin laakiin waxaan farayaa inay u ogolaadaan inay goobaha tirinta u ogolaadaan waxaan leeyahay mar labaad Somaliland waa guulaysatay doorashadana waa ku guulaysanay mahadnaqeedana marka koowaad shacabkaa leh marka labaadna xusbiyada qarankaa leh marka saddexaadna xukuumadda iyo intii nagala soo shaqaysay oo ay ugu mudan yihiin
dhalinyarada reer somalilan jaacadaha ka baxday ciidamada amniga dhammaantoodba ciidamada somalilan waxgaradka iyo cid kasta oo gacan ka geysatayba aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. dhamaystiran baan arkaaye dhegaysta somalilan bulshay waanadayda dhugo dambalkan ku siidiyo dhawaaqa codkayga maqal bulshooy dhawaaqa codkayga maqal xirku inagu bato dhaameel baa loo ruuxaa eefun lama raadiyo dhardhama rac lama noqdee damo calankeena iyo xornimo waa loo dhintaa qaraara loo qadayo dhiiga loo daadiyaa Somaliland haatan waxaan ku soo dhaweynayaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Somaliland mudane Maxamed Kaahin Axmed wasiir soo dhawow maxaa ka cusub doorashadii dhinaca ammaanka iyo sidoo kale goobihiiba. bismillaahi raxmaani raxiim. sidii uu sheegay gudoomiyaha commissionku ninka wasaaradda dakhliga qolada ugu horeysa ee sida tooska ay u wada shaqeeyaan commissionku ayaan ka mid nahay waanaan ka wada soconnaa xaaladan oo dhan waynu la soconnaayoo saaka xilligii xeerka doorashooyinka uu qorayey ayay bilaabantay doorashadii 7 saacadood si nabadgelyo leh ayay uga bilaabantay dhammaan gobolada dalka oo dhan. waxaa laga codeynaya 2709 gobol si wanaagsan ayay uga dhamaatay. waxaa ka howlgelaya ilaa dhow 10,000 oo ciidana in ka badan. waxaa ka howlgelaya tiro 30,000 ku dhow oo shaqaalaha commissionka bulshada rayidka ah maxaanku dhahday goobjoogayaasha maxalliga ah ka midka ah waa inta reer somalilan ee si toosa uga shaqaynaysay doorashada ayaa ku jirtay. waxay noqonaysaa markaa tira dhowr iyo 40,000 oo qof ayaa inooga shaqaynayay. alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waxaan ilaahay ugu mahadnaqaynaa ilaahay ugu xamdi naqaynaa inuu doorashadii inoogu dhammaatay si nabadgelyo ah. waxaan odhan karayaa doorashadani waa doorashadii intaan isku soo dhowaano dhaliisha intaan ka day dalkeenna wada dhisnee qofalow dhankaaga qabo muwaadil dhankaaga qabo dhalinyaroy dhankaaga qabo madaxweyne dhankaaga qabo. odhan karayaa doorashadani waa doorashadii ugu horreysay ee shacabka reer somalilan qof isdileen iyo shil qura oo ka dhacay doorashada iyo fal qura oo ka dhacay doorashada iyo ilaalintii ciidamadii nabadgelyada ilaalinayay iyo mid ka dhacay iyo komishinkii doorashada aanu jirin. waana doorashadii ugu cuslayd ee laba gole oo la dooranayay ahayd 900 iyo 87 xildhibaan oo golayaasha deegaanka iyo golaha wakiilada ah ayaa 3 xusbi qaran ka sharaxnaa. waa doorasho aad iyo aad u culus. nabadgelyo nagu dhaaftay. ilaahay baynu baranay ilaahay wuu naga aqbalay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin. guushaa waxaa leh shacabka reer somalilan waan ugu mahadnaqaynaa inay si wanaagsan in ay meesha maanta soo baxday inaynu doorashadii 7aad u dareernay in ay soo baxday waayo aragnimadii iyo ilbaxnimadii iyo kalsoonidii ummadda reer somalilan. waxaa soo baxday in komishinka doorashooyinku doorashada uu u qabanqaabiyey si aad iyo aad mug leh oo maamuus leh oo milga leh. waxaa soo baxday in xukuumadda somalilan doorashadan ay qeybtii ugu weyneed ka qaadatay oo idinla socotaan doorashadan marka laga reebo hay-adaha sida maxaanku idhahdee nagaad sons of civil society-ga dhaqaalo aan badnayn oo ay international community-gu ku caawiyeen iyo wax kooban oo ay ku caawiyeen komishinka doorashooyinka. waxa ay ahaan jirtay in somalilan ay bixiso 25%
international community-guna inay bixiso boqolkiiba 75 maanta way isdhaaftay dowladda Somaliland waxay bixisay boqolkiiba 75 international community-guna uu ku mahadsan yahay dowladda Somaliland way ku mahadsan tahay madaxweynuhu uu ku mahadsan yahay waayo waxaynu doonaynaa in aynu lahaano ownership-ka lahaanshaha doorashooyinkeena reer Somaliland inaynu la kulahaano saynu la kulahaano waa inaynu dhaqaalaheeda iska bixino waxaan maleynayaa doorka inta ku xigtana waxay dowladda Somaliland bixin doontaa boqolkiiba 100 ayay bixin doontaa way idin la socotaan aad baa loo xiiseynayaa goobjoogayaal 100 iyo googo-aba inoo yimi aad iyo aad bay u fiican yihiin aad iyo aad bay si muddo kale bay ula yaaban yihiin doorashada Somaliland siday ku dhamaatay nabadgelyo ku tageen nabadgelyo ku soo xeroodeen 7 caawa 7 saacadood way soo wada galeen 7 iyagu maxaan ku dhahdaa ay shir leeyihiin goobihii sida gudoomiyaha komishanka uu sheegay bay u soo wada xidhmeen sida xeerku qorayana goobaha ay dadku joogaan askari ba xagga dambe laga dhigayaa ilaa dadka kuyuuga ku jira ay dhamaanayaan bay ay doorashada ku jirayaan waxa inoo hadhay marxaladii gudoomiyaha uu ka sheekeynayay ee ah tirintu waxna komishanka leh xusbiyaduna goobjoogayaasha iyo muraaqibiinta tirinta u joogayay codadka kala tirsanaya bay ka mid noqonayaan hal arrin waxaan farayaa musharaxiinta 3 xusbiga way soo shaqeeyeen way soo ololeyseen si nabadgelyo leh oo deganaansho leh oo milkiye maamuus leh ayay doorashadii ku gasheen taageerayaashiinii nin walba wixii alla u calfayna sanduuqa way u galeen musharaxiinta waxaa laga doonayaa sida gobonimada leh doorashada ay u galeen inuu wixii alla qorayna calafna waa wixii alla qoro in ay ku sugaan doorashada natiijada kama dambaysta ee ku soo baxaysa komishanka doorashooyinka xusbiyada qarankuna xaq waxay u leeyihiin in muraaqibiintooda hadda goobaha way ka yimaadeen hadda heerka degmada iyo heerka gobolka tiriyayaashooda uga qayb galayaba maxaan ku dhahdaa ay joogaya halkaana inay waajibkooda ka gutaan dadweynaha taageeraya 3 xusbiyada waxaan ka codsanayaa inay si wanaagsan oo nabadgelyada aynu u siino chance komishanka doorashooyinka natiijada soo baxaysa cid waliba waa in ay qaadataan natiijada doorashada ka soo baxaysa ayay u baahan tahay taasaa milgaheedu ku xidhan yahay waa laynagu ammaanaa waa doorashooyinka ugu badan ee Somaliland 3 doorasho madaxweyneynu galay daahir riyaale xilligiisii 2 doorasho madaxweyne ahayd xilligii Axmed Siinaye 2 doorasho madaxweyne ahayd xilligii doorashadii maxaan ku dhahdaa daahir riyaale 3 jeerba waxaan Afrikaba ka dhicin ba ka dhacay waxaan la yiraahdaa peaceful transfer of power in xukunka si nabadgelyo loo isugu wareejiyo sida Somaliland ugu dhacday geeskan Afrikayna ka koobanahayna kama dhacdo Afrikaynteeda badanna maxaan ku dhahdaa kama dhacdo waxaynu doonaynaa doorashadan maanta inaynu sallaan ka dhigano aynu u fuulo itiraafkii Somaliland inaynu bulshada caalamka ku qancino arrintan doorashada maanta dhacday waxaynu u baahanay sidii nabadgelyada ay noogu dhacday inaynu inta kalena nabadgelyo ay noogu dhacdo aad aad baan u hambalyanayaa ciidamadii qaranka ee hawshanka nabadgelyada inoo ilaalinayay waxaan hambalyanayaa komishanka doorashooyinka xusbiyada qaranka guud ahaan xukuumadda iyo madaxweynaha Somaliland sidii gobolada mas'uuliyiinta gobolada Somaliland gudoomiyayaasha gobolada gudiyada nabadgelyada ee gobolada hawshan si fiican wasaaradda dakhligana kala shaqeynayo ay ka tirsan yihiin komishanka doorashooyinka heer gobol iyo heer qaran la shaqeynayay oo inoo suuro geliyay iyagana waan u baahan baqayaa shacabweynaha Somaliland waan u baahan baqayaa aad iyo aad baan mahadsantahay intaan isku soo dhawaano dhaliishankan ka day dalkeena wada dhisnay qofalow dhankaaga qabo muwaadin dhankaaga qabo
dhalinyaro dhankaaga qabo madaxweyne dhankaaga gudoomiye cabdirashiid riyaraac su-aasha ugu dambaysan ku weydiinaya waxay tahay goorma ayaa la fili karaa gudoomiye in natiijadu ay ku baxdo intee in legda qaadanaysaa natiijada in lagu dhawaaqo waa laba natiijo midide waa natiijada hordhaca ah waxaan rajaynaynaa haddii aan culays badan runtii dee codka maanta waa ogtiino 1 milyan baynu rajaynaynay iyo ka badan inay codeeyaan waqti bay u baahan tahay iyo tirinteedu waxaan runtii ku hanweynahay ku kalsoonnahay in muddo 24 saacadood lagu heli doono natiijada hordhaca ee degmooyinka ta goboladu iyadu weli ma aragtay ma arifi karno natiijada dee kama dambaystaana runtii ma cayimi karro toos laakiin muddo dee sida qiyaasaadka komishanku qaadanayo 10 casho wixii iyo wixii ka yar inay qaadato ayaan rajaynaynaa hase ahaatee de waxay ku xidhnaan doontaa ummadda codaysay oo aynu ogaan doono ilaa berriba aynu ogaan doono codka insha allah majoritigiisa culayska uu yeesho marka komishanku wuxuu diyaar u yahay inuu sida ugu dhaqsaha badan dee loo helo natiijooyinka oo maaragtay aynu ugu dhawaaqno wixii sidee waqtigu dee riixo ama codku miisaanku uu leeyahay riixo dee kumaynu darin waxaase aynu qaadanaynaa qiyaasaadka haddii alla ka dhigo وهجاج أدي أدبي ومهتين قدوميها جدة دورشين كسومالي لان عبد الرشيد الريراعي يسدو كل وزير كوزارة دارمها جدها سومالي لان محمد كاهن أحمد وحيين هالكني نوقش شاعيين دورشدي حبس موسوعد واقع كيجا مطل بلشو واقع كيجا مطل يا لدوي دجالادو شرعي ويدين عمرتاي مركا وحلو برتيو يا حين حيلادي وانا كمر دردعو تدكين انا ويدتاي انت ما بدقيستي الله يوم goobaha codbixinta ee doorashooyinka Soomaaliland waxay xaqiijiyeen mas'uuliyiintu inay xirmeen dhammaan goobihii codbixintu marka laga reebo kuwa dadkii ka codeynayay ee ka hor 6dii maqribnimo yimi in la dhameystiri doono barnaamijkeena imtixaanaha ahaa ee idinkaga imanayay stuudiyaha nabad ku code ee dalada ururada aan dawliga ahayn ee Sonsof ay halkan inooga sameysay ayaa intaas inoogu soo eeg ilaa saaka 7 subaxnimo intii goobaha codbixintu ay socdeen ma Somaliland intaan isku soo dhawaano dhalisha intaan ka day dalkeena wada dhisnee qofalow dhankaaga qabo muwaadil dhankaaga qabo dhalinyaro dhankaaga qabo madaxweyne dhankaaga qabo ma Somaliland intaan isku soo dhawaano dhalisha intaan ka day dalkeena wada dhisnee qofalow dhankaaga qabo muwaadil dhankaaga qabo dhalinyaro dhankaaga qabo